السلام عليكم ومركز مقال عصب وورينا دي نوع سبتي يوتيوب channel كينا مستر شاكي وحكا عصينا channel كينا سبسكرايب كريسيد هدية دينا جوجتي أما وقالنا موقع سارتد سي قاران سحبوا وناسن سيدين كوكلا أما سندين رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بنترحب سابنا صيامنا ما بنلعب. طيب maalmaha ka mid ah waxaan u soo guurnay dhulbeereed aan lahayn. dhulbeereedkana waxaa lahaa aabahay iyo adeerkay. dhulbeereedku waxa dhul aad u barwaaqo badan. hasaatee maalmaha ka mid ah aniga joogna keenta waxaan dhulbeereedkii aan lahayn. adeerkayna wuxuu maalinta mid inoo duway hilib. hasaatee si lama filaan ah wuxuu u maqlay shanqar ka yimaada dhanka keentii. markuu si fiican u eegayna waxna wuu ka waayay. markuu gudaha u guda galay qolka si uu soo qaato alaabo u baahan ugu daray hilibkii. wareentiiba wuxuuna waayay hilibkii meeshuu saarnaa u dubay. wuu yaabay. marka xigtana wixii malaha bahal ayaa cunay. saatee wuu rumaysan karay waay bahalkan oo cunka halaalo hilib ah. wuxuuna furay kaamiradiisii si uu arko waxa cunay hilibkiisa. wareentii markuu arko waxa cunay hilibkiisa wuu aamin karay waay. qof bini'aadan ah afarta gacmood ku soconayna wajigiisana wajid aad u argagax badan. indhihiisii ku cadadaan aad u weyn jirkiisana malahan wax xad ah. adeerkii wareentii markuu warkii sheegay waxa moodayay inuu la kaftamayo. saatee waxa mooday aabahay xilligaa askari. aabahayna markuu sheegay arrintii uu aamin karay waay ilaa uu ka tuso. isla markii aabahay arkayna ma hayla wuxuu qancay la hadda. wuxuu ku yiri walaalkii waxa ka codsanaya arrintan inaan u sheegin xaaskayga. maxaa yeelay ayada aad uga cabsi badan tahay. warna u sheegay. sidaa darteed looma sheegin hooyaday. adeerkii wuxuu ku yiri ha u sheegin hooyada waxaan aad aragto maanta. saatee anigu waxaan isdhay adeerka jiliin ayuu wadaa. habeenkii ma aan aamin aniga. saatee intii habeenkii hurdayay ayaan waxaan maqlay qaylo aad u daran. qolkeen wuxuu ku yaalay qaybta dambe ee guriga. qaylada maaha mid aad u adkaysan karaa. qaylo daran ayaan maqlay xilliga. waxaan damcay inaan baanaha ku soo baxo si aan u arko adeerkii wuxuu sheegayo. wareentiiba waxaa soo qaad kaamiradiisii si aan u xaqiijiyo waxaan arkayo. si tartiib ah ayaan guriga soo baxay anigoo doonaya qofna inay arag. wareentii markay soo kordhay keentii waxaan mid iska eegay hareeraha. waxaan ka cabsanay inuu arko xayawaan. saatee markii kaamira furay aan gudaha u galayna wareentii waxaan arkay waxay ka mid ahaayeen waxatan. marka koowaad aan soo galay dhanka gudaha keenta anigu waxaan mid raadinayaa xayawaankii uu sheegay gaar ahaan adeerkaygii. in muddaa kadib markii aan baadigoobayay xayawaankii ayaan waxaan arkay ugu horeentiiba asigoo saaran dhanka geed aad iyo aad u dheer. si fiican marka uu soo dhaweeyayna wuxuu ahaa qof bini'aadan oo isdhahay saatee maahan qof bini'aadan. hal mar si kale soo fiiriyay. anigu aad u argagaxsan waxaan ahaa qof aad u shoogay. isla markiina waan ka soo cararay meeshii. asina wuxuu si lama filaan soo fiiriyay. wuxuuna waxa maalintaan arkayay weliba adeerkay tusayay. aniguna waxaan xaqiiqsaday arrinta adeerkay ii sheegay inay tahay mid sax ah. isla markiina waan ka soo cararay meeshii weliba khaylinaya weliba zaid ah. markaan guri imaadana habeenka dhan waxaan mid aad u qarqaraya. waxaan arkay awgii waan aamin karay waa weyn oo cunay hilibka xayawaan. waxaan rumaystay adeerkay wuxuu sheegay inuu mid sax ah weliba bahalkii cunay hilibkii.